بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمته حاجرته عد هدي وحلا ويديستو لغو العليو ويدي بصدان عد كلنا هدي وحلا ويديستو أو لغو العليو وجعل يستا بني آدمك مخلوقة إلهي أبوري هداد وح ويديستو أكو العليسو ودبسانايا لكن إلهي سبحانه وتعالى هدي وح ويديستو وكو جعلانايا دعاء دين إسلامك وقيب كما دا توحيدك markaad ducaysanaysid waxay caddaynaysaa ilaahay inaad aqoonsatay kelinimadiisa awooddiisa ilaahay inuu wax walba hayo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yahay midka keliya la baryo wax la weydiisto nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis imaam tirmidi uu wariyey wuxuu yidhi adducaa cibaada ducadaaba cibaada ah markii aad salaada ku jirto cibaada ku jirtaa markaad ducaysanaysid iyadana cibaado waaye waxaad marka ducada qofka muslimka waxay sii dheer tahay alla awood badana ah oo wax walba hayo ayaad xaggiisa u jeesatay haddii oo adiga oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadaasi ducada ku jira wax weydiisato haddaad yaqiinsato ilaahay wuu ku siinayaa marka dadka tusaale oo bini aadanka fahmayaan u sheegaa kadibna waxaan aadaa awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala saa u aragto tusaale waxa waaye haddii aan soo koobo qofka bini aadanka ah ama insaanka guud ahaanba markuu dhakhtarka dawo u qoro wuxuu rumaysan yahay dawadaasi hadduu qaato inuu ku caafimaadayo marka qaarkood dhakhtarka markuu dawo kuu qoro waxaa dhacayso inuu ku yiraahdo dawadan marka labadan kuu qoraya xitaa waddanka maraykanka oo hadda aniga aan joogo waxaa aada loo isticmaalaa qofka mar labaad inuu fiil garayn karo macnaheedu waxa waaye mar labaad inuu soo noqon karo farmashiyaha haddana waa loo qorayaa dhakhtarka wuxuu ogolaanaya intaasoo jar inuu qaadan karo waa ku celcelin